dhammaan walaalaha isticmaala qaybo ka mid oo badan baraha bulshada. Baraha bulshadu waa meel khayrna laga fidin karo, dhib iyo dembi iyo shar badanna laga samayn karo. Fariinteeda caawa waxay ku saabsan tahay ama aan halkan ka soo jeedinayaa waxay ku saabsan tahay fariimo badan oo isdaba joog ah qoraallo iyo cod u soo dhaca oo la xiriira arrimo diina iyo axaadiid iyo ballanqaadyo. waxaa jira fariimo beena oo dadka aad loogu fidiyo. waxaan rabaa inaan ka hadlo laba nooc oo mid ay laba tahay. nooca koowaad aan raba inaan ka hadlo waa fariimo badan oo qoraal idinku soo gaaraya oo leeyahay waxa haddaad akhrido waxaasaad heli, aad kuus haddaad akhrido waxaasaad heli, qurwalla inta haddaad akhrido waxaasaad heli, digri haddaad akhrido waxaasaad heli, muddo intaa le gudaheed baad waxaad ku arki, haddaad samayn weyey fariintan haddaad fidin weyda dhibkaasaa kugu dhici, oo ballanqaadiyo oo sidaasoo badan oo been ah. arrimahaasi shaki badan waxaa laga qabaa inay ka dambeeyaan dad aan muslim ahayn. nuxurka iyo ujeedaduna diinta dadka in laga shaki geliyo ay tahay. laba arrimoodba marka waa muhim inaad ku baraarugto. marka koowaad, waxaan la sheegaya waad heliyo oo kugu dhici laleeyahay waxba kama jiro. aayadna ma sheegin, xadiid nabi oo suganna ma sheegin. waa been ay dadku sheegeen, waa been la alifay oon sal iyo raadtoona lahayn. saa darteed ballanqaadyadani diinta ka mid maaha. sax aad ku siin laqaday fadhiga leeyahay tusaale ahaan, laakiin haddaad akhri weyda waxaasaa kugu dhici iyo haddaad akhrinta akhrida muddo intaa leeg baad wax ku helido been wey. qodobka labaad ee ku baraarugta ay tahay waa xumaanta ka dambaysa. haddii maanta ballanqaadka aad rumayso ood arki weydo, mid labaad aad arki weydo, mid saddexaad arki weydo, mid shanaad arki weydo, mid tobnaad arki weydo, marka dambe waxaa iman diinta waxaanu ballan qaadaysee wada beentaa maxay tahay. diinteedana ka shakila wey waxaa labaad imanaya. waana yoolka laga shakisan yahay hay-ada iyo shakhsiyaad iyo dad badanoo waxaa ka shaqaynaya inay hiigsanayaan. haddaba si khaldan yaan lagu raran. fariinta labaad aan raba inaan baraarujiyo waxaa weeye maalmahan qof codkiisu aada isugu egyahay, isshabaho oo wuxuu soo diraa fariimo xambaarsan axaadiid nabi sal slam laakiin beena. aan laba fariimood ka soo qaato. waxaa laga yaabaa inaad ila aragteen aada iyadoo la isugu dirayo fariin odhanaysa nabi maxamed baa sal slam 4 jirkay ku jiradaan, 4 jirkay duniyaan, 4 risiqay reebaan, 4 risiqay furaan, 4 wejigay nuuriyaan, 4 wejigay nuurkiis ka qaadaan. taas waa been. nabi maxamed ma dhihin sal slam. waa dardaaranno dhakhaatiir bixiyeen. ibnulqayimna zaad almacaadka akhirkiisa ku sheegay. qaarkoodna niman dhakhaatiir oo griigii hore jalin yoosiya rag lamid a bixiyo muslim bahay. taas nabigaa yidhi waa been, waxba kama jiro. isla fariintaa waxaa ku duuban in nabigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi saytuunku saliidda zaytuunku 7 cudur bay dawa ka tahay. waa been. nabigu ma dhihin sal slam. waxaa ka mid ah aadaanka ha la aamuso waxay aan la akhriyin. nabi maxamed wuxuu yidhi haddaad aadaankoo socda wax akhrido shahaadada sakaraadku markuu qabto tawxiidka haleeli maysid. iyana waa been, waxba kama jiro. nabi maxamed baa hadli jiray, saxaabadaa hadli jiray oo sheekaysan jiray aadaankoo socda, sida muwatta maalik laga wariyey. cumar markuu khudbaynayo fuulo mimbarka salaadaa la joojin jiray, inta la aadaamayana waa la sheekaysan jiray. saasay saxaabadu ahaan jiray. marka iyana waa been, nabigu ma dhihin. waxaa ka mid ahoo fariinta uu xambaarsan yahay rumaanka iniintiisa iyo midhihiisa mid kastaba biyaha ku jira jannay ka yimaadeen ama biyo jannaa ku jira. waa been. nabi maxamed ma dhihin sal slam. fariintaa dhan laba eray baa runka ah. nabigu wuxuu yidhi balliquu canii walow aaya, iyo nabigu wuxuu yidhi xabatu sawdaa shifaaun min kulli daa. inta kale waa been. nabigu ma dhihin sal slam. fariinta labaadeen tusaalaha kusoo qaadanayo kale waxaa weeye codkaa shabax ninkaana u eg yaa wuxuu werinayaa fariin ku bilaabanaysa wallaahi wa billaahi wa tallaahi. haddaad dhegaysato wuu ku saamaynayaa, qalbigaa waxuu ka bedelayaa. duruusun fi lxub. intaa dhaarta ah muxuu ku dhaartay? been buu soo wadaa. wuxuu leeyahay nabiga iyo cumar iyo abubakar iyo abudar baa meel isugu yimid. nabigu abubakar buu weydiiyeyoo maxaad jeceshahay buui. adduunyada 3 ma jeclahay buui. cumar buu weydiiyeyoo 3 ma jeclahay buui. abudar buu weydiiyeyoo 3 ma jeclahayo jiro iyo cudur iyaa ka mida. kadib nabigaa la weydiiyo adduunyada 3 baan u jeclahayo atiibu wاnnisaau wasalaatu buu yiri buu leeyahay. intan dambe
ولي wax khaldani ku jira ka jirta tanabi alayhi salaam way jirta xubiba ilayya min dunyakum at-tib wan-nisa waj'alat qurrata 'ayni fi as-salah adiyadina riwaayaadka qaar kood oranaya thalathatun wa bayn riwaaya thalathatun ma jirto way salaada adduunka kamid maaha at-tib wan-nisa nabi way sheekadan kale ee kullamaani waa bayn meel kutubu sunna ay kaga qoran tahayna ma jiro inay sidaas tahay culimadu waa sheegay nin la yiraahdo Qastalani bawaahi la dunya ku sheegay ajruna fi kashf al-khafa markuu sheegay meel lagu garanayo inay jirin bay sheegeen marka sheekada beenta buu dhaar uu san Ilaahay ugu baahi sameeynin buu ku horeysiinaya codka ninka waa soo yihiin cidii garanaysa farinteeda ha gaarayso muslimka beentana dhaxwada ka dahalayda nabigan laga been sheegay been la mid maaha khayr baan jeclahayna qeyl uma aha in nabiga laga been sheego dadka fariimaha beenta sheegayana intaad waxaan khayr baan jecelahay tiraahdaan hadan baabina oo beenta xadiis hada 100 qof u qorto u dirto oo wada fuwar garaysaan oo siidii wada dhalaan mid wuxuu ku leeyahay akharka agtaada yanan fadhiin qofka waliba waxay u sii badinaya codkiisa ECA oo kale adkaysinaya hatta carabi ma kasiyo ma garan yaqaan carabi soo wada qofka ma yaqaan tan dambe saddexda u dhaaranayana Abu Dharr buu magaciisa kale laayay tan horana sadaqa jaariyo garan laayay sadaqatu jaar wiilay jaar waa daris jaariya ma soo soconaysa ma hatta jaariya jaar buu kala kicin laayay Abu Dharr buu magaciisa kicin laayay xayntan beentan ahadiista meel ka soo gura الاستعداد ليوم المعاد ابن حجر لو تيرني بانتا ثلاثيات كي رباعيات كي خماسيات كي سداسيات كي عشاريات كبانتا يكبوحين طالما مراينا يا مدوغو ما نقوننا انه قير كسو دلدل waxaan rabaa fariintaydu khayr ka fidiya laakiin iska hubsad dameera beenta lagu dhaansada ha noqonina makarafoonna beenta u adeega ha noqonina ogaada nabiga laga been sheegay waa dambi weyn nabigu wuxuu inna kadiban calayya laysa ka kadiban ala ahad بين لا يغشى لمن ما بين قفك لا يغشى فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إلهي لا يابو فرينت إذا قفك صوده عدي قرانيسي بدك هلا جارسيه بينت هلا اسكيل عليه خير له وانا هلا فيه وما حسنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من